السلام عليكم كسر دواد عشرة امتحانها أنا وبرتين هذا أنا كل إن نزوج بينه ما أنت وحن بلعبنا موضوع عصب والله ما يحبحي فارماكولوجي وحن برضونا داوينك سيد الله استعماله يقابل وكلا بحان أمبرنا مركا ما أنت وحن ربنا إن بلاونه هرنع كسابسن وحلو يقان فارماكولوجي وحن قالنا introduction وحن قال introduction to pharmacology waxaa qaadan hordhac ku saabsan waxa loo yaqaan pharmacology marka pharmacology maxaa lahaa waxaa loo yaqaana drugs waxaa la baranaa oo ama la daraasina drugs la daraasina maandoori aw taqaanin waxyaabo oo jirkaaga isbedel ku sameeynaayo al daraasina waxaasna waxaa la isku dhahaa drugs la isku dhahaa logi maxaa loo yaqaana waxaa loo yaqaana study waxaan baranaynaa marka waxyaabo la xiriira drugs ka baranaynaa marka pharmacology lahaa waxaan baranaynaa waxaan baranaynaa waxyaabaha la xiriira drugska marka waxyaabaha la xiriira drugska waxaa loo qaybiyaa laba category loo qaybiyaa waaweyn waxaa loo yaqaanaa pharmacokinetics iyo waxaa loo yaqaanaa pharmacodynamics loo yaqaanaa marka pharmacokinetics waxaa laga wadaa daawooyinka mar alla markaad aad rabtid inaad jirka bini aadanka qaabka loo kala qaybinayo iyo jirka bini aadanka daawada ku habboon qaabka loo isticmaalayo yacni daawooyinka jirka u baahan waxaa loo yaqaanaa pharmacokinetics loo yaqaanaa daawooyinka jirka u baahan maxay yihiin marka daawooyinka jirka u baahan waxaa loo yaqaanaa jirka waxaa u baahnaan karaa number one waxaa loo yaqaana wuxuu u baahnaan karaa waxa loo yaqaano drug absorption wuxuu u baahnaan karaa daawooyin oo la sameynaya drug absorption inoo nuugo wuxuu kaloo u baahnaan karaa waxa loo yaqaano drug metabolism waxaa la sameynaya daawooyinka oo jirka bini aadanka soo galo inay isbedel jirka ku sameyn karaan kelimada metabolism maxaa laga wadaa waxyaabaha isbedelada jirka bini aadanka ku sameynayaan waxaa loo yaqaanaa metabolizer jirka wuxuu ku sameynaa metabolism uu sameynaa yani muxuu sameynaa isbedel uu ku sameynaa wuxuu bedelaa xaaladda markaas jirka uu ku sugnahay xaalad ku cusub uu ku bedelaa haddii xaalad adag oo ku jira jirka xaalad adag oo ka saara xaalad wuxuu ku bedelaa VOB marka falgalka ka dhacayo daawooyinka iyo jirka bini aadanka waxaasaa loo yaqaanaa metabolism loo yaqaanaa drug metabolism isbedelada ku dhacaya daawooyinka waxaa loo yaqaanaa drug metabolism iyo waxaa ugu muhiimsan drug distribution see daawooyinka jirka loogu qaybinaa see loo sameynaa distribution qaabka loo sameynaya baranaynaa waxaa kaloo baranaynaa waxa loo yaqaano drug excretion soo jirka isaga saara waxyaabahan loo yaqaano drugska yani drugs qaabilsanaa jiro qashin saarka yani drugskan oo jirka bini aadanka dhex fadhiistay see loo sameynaa excretion kuwa waxaa jiraan qaabilsan excretion system ay qaabilsan yihiin waxay sameynayaan inay fududeeyaan waxyaabaha oo problemkaas oo keenaya marka pharmacokineticskan waxaa ugu muhiimsan afartan shay ugu muhiimsan waxaa loo qaybaa drug absorption iyo drug metabolism drug distribution iyo drug excretion loo qaybiyaa haddaan fiirino pharmacodynamics asana waxaa ugu muhiimsan waxyaabaha moleculeska molecules iyo waxaa ugu muhiimsan wax loo yaqaano biochemicals waxyaabaha chemical oo jirka bini aadanka u baahan sida carbohydrate-ka lipids-ka waxyaabaha jirka bini aadanka u baahan oo chemicalska waxaa kaloo ku xigo waxa loo yaqaano pharmacodynamics waxaa kaloo ugu muhiimsan waxa loo yaqaano biochemical molecules iyo biochemical waxaa kaloo jira waxyaabo oo jirka bini aadanku sameynaa effects waxaa loo yaqaanaa physiological effects
physiological drug effects loo yaqaanaa daawooyinka oo jirka bini'aadamka effects ku sameynaya aa lagu dareysiyaa. waxaa kaloo lagu bartaa waxaa ugu muhiimsan drug mechanism of action. waxaa lagu baranaya marka waxyaabaha oo jirka bini'aadamka shaqooyinka badan action ka qabanaya, ficilada sameynaya. marka qaybtan waxaa loo yaqaanaa falgalka ama saameynta ama raadka oo ka taga daawooyinka. qaybtaana daawooyinka qaabka oo jirka bini'aadamka ugu falgalayo. labadan shay ugu muhiimsan oo laga bartaa pharmacology-ga. marka guud ahaan waxyaabaha la isku dhahayo pharmacology waxay leeyihiin branches, qaybooyin leeyihiin oo ugu muhiimsan oo laga barto. qaybaha oo brancheska waxaa kamid ah pharmacokinetics iyo pharmacodynamics. qaybo fara badan oo kale way jiraan. marka pharmacokineticska waxaa loo qeybaya afartan, pharmacodynamics intaan loo qeybayaa. marka mid mida u dul istaagi doonaa, mid mida u bari doonaa. haddii aad doonaysid muuqaalkan oo dhammaystiran ama aad tahay arday ka tirsan ardayda magaalada muqdisho ama arday jooga gobolada dalka oo rabo inuu barto laboratory ama wax walba oo la xiriira caafimaadka, fadlan nagu soo booqo xaruntan dhexe ee ku taala magaalada muqdisho ama nagala soo xiriir nambarada shaashada kaga muuqda ee WhatsApp-ka si aad ugu heshid casharadeenna qaab online ahaan. waana mahadsantahay, soo dhawo.